السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي qiimaha qadarinta iga mudano waxaan idin hayaa qiso jacayl oo cajiib ah oo dhacday dhegeysi habboon. Gabar ayaa ila soo xiriirtay oo ii sheegtay qisadan sida tan iyada ayayna ku dhacday. Gabadhaas waxay tiri nin ayaan is jeclaanay oo meel aan iskugu imaanay. In badan ayaan meel iskugu imaanay, ninka ishaydii bay qabteen, isagana wuu i jeclaaday, anigana waan jeclaaday. Lambar ayaan kala qorannay, waan isla sheekaysanay. Jacayl kadib, ninka horta intaasoo sano ayaan isla sheekaysanaynay. 3 sano markaan isla sheekaysanay ka dambe Maraykan ayuu u duulay. Maraykan markuu u duulay waa uu i jeclaa, isma uusan bedelin. Markuu xagga tagay waa iga gaabsaday, aad baan u jeclaa. 3 sano ayaan waqtigeyga ku dhuminayay oo jaamacadan dhiganayay. Markuu xagga tagay ninkii waa isbedelay. Ninka aniga hadduu isbedelay iyo haddii kale jacaylkeyga baan ka fiirsanayay. Hadduu telefoonka iga qabto waan arkaya ayay igu tiri, sidii hadalku dhigto waaye. Marka hadduu iga qaban waayo waan ka aamusi jiray dhahday, ilaa qofka lama cadaadin kare. Waan telefoonku iga qabanayaa si fiican ilama hadlaa, walaalow waxaa jira ma ii sheegtid. Wuxuu yiri inaan ku mehersado ayaan rabaa. Waan is mehersanay. Wuxuu yiri aroosku dhici doonaa iyo meher yar ha dhaco, aniga waan imaanayaa. 2 sano waan ku soo degay. 2 sano kaliya maqnaa, waa 5 sano intaas. Asoo iga gaabsanay aniga jacaylka ayaan fiirinayay. Uganda markaan ugu tagay isagoo lacag ii keenin, Nairobi aan joogay. Cidayna aniga waxba uusan sheegin baan Uganda ugu tagay. Ilaa ninkii nin sheekh yar unbuu u yiri meher baa dhacay. Cidayna maysan ogeyn meherka dhacay. Waan qariyay maadaama uu yiri aniga waan ku jeclahay. Markaan tagay ayuu arooskii meherka wada dhacay aan ku arko, ma fahanteen. Marka ninkii waan u tagay jacayl la'aalihiis. Ninkii markaan u tagay in muddo oo bil camal ah ayaan isla joognay. Intaas markaan aan isla joognay ninkii waa uu duulay, Uganda ka duulay. Shilin ma haysto, wuu iga tagay. Markuu tagay ayaan ku soo diray wuu igu yiri, wuu ii soo diray aniga waan soo tagay anigoo cidayna aysan ii ogeyn, anoo jaamacadan dhigan iyo waxyaalahan ku mashquulsanahay ayaan ku dhahay. Waana shaqayn jiray. Bas waan imaaday. Nairobi aan iska imaaday. Ninkii telefoonka wuu iga dansaday. Gabarnimadeydii ma hayo. Telefoonka wuu iga badashay. Aqoon uma lihi, cidoodana ima uusan barin. Meherka wuu igu xiran yahay. Markii dambe oo cabaar laga soo wareegay, telefoonkiisana ma dhaceen. Telefoon kale wuu iga soo galay. Warqadiina kabtaas ayuu igu soo diray, meherna kuma siinaya ayuu igu yiri. Cidayna ma ogeyn arooska dhacay. Meeshaasna stress iyo waxyaalo badan ayaan kala kulmay. Aniga xaaladaas og yaa haddana iskiiga aamusay. Nin ayaan u sheegay xaaladda igu dhacday. Horta nin muddo 2 sano iska socday oo nin ma guursan karo, cidayna shantirima ayay ii ogaayeen. Nin ayaan isbaranay oo dalka Kenya oo gaar ahaan Nairobi aan isla joognay oo shaqaynayay. Wuxuu yiri walaalay waan ku jeclaaday inaan ku arooso ayaan rabaa. In sanad ayaan ninkaas isla soconay. Wax walba oo mandhigay waan kugu jeclahay ayuu yiri. Ninkii markii aan saas u dhahay waan isguursanay. Anigoo isguursanay oo Nairobi iska dagan oo waxaa xamile ah ninkii kale imaaday. Ninkii kale markuu imaaday anigu isoo raadiyay meel aan joogi jiray ayuu imaaday. Waana la ii sheegay, waana loo sheegay in la guursado. Gurigeyga ayaa la igu keenay asxaabay. Marka guriga la igu keenay ninkii wuu ii imaaday. Wuxuuna yiri ninkii way isdagaaleen wuu ku booday. Wuxuu yiri naagtan aniga ayaa qabo, uur ma ku noqon karto, xirigeeda ku xiran. Warqadii markhaati keen markii la dhahana sheekhan inaan meheriyaan og yahay laakiin furitaankeeda war ma ka hayo dheh sheekh Uganda joogay. Anigana warqadii ma haynin oo telefoonkii waan iska falaashaybo. Telefoon cusubna markaas waan watay. Kii hore u yaalaa laakiin si kuma jiro. Telefoonkii waan falaashay. Marka qisadaas ayaa igu dhacday asxaabay. Ninkiina ma furin buu igu yiri. Ilaa ninkii kale waan kala tagnay kan iyo muusan guursan. Xaasidnimo uu ii yeelay. Hadda waxay dhahdeen asxaabay waan haystaa gabar baan dhalay. Labada nin waxaan hadda aan xirig aan u hayno maaha ii hayaan maahan. Ilaahay baan xaaladeyda og, aad baan u murugaysan yahay abay igu tiri. Anigu baan shaqaystaa ayuu dhahday. Sida cajiib way wallaahi. Nimanka waxaan ka dardaarmayaa nimanka naagaha si ay yeelaan Ilaahay ka cabsadaan. Naagta inta la mehersado hataa cidooda iyagooda og yihiin gabdhaha qaarkood ayaa laga tagayaa oo loo soo dirayaa warqadooda la soo furayaa. Waxaas maxaa waa Ilaahay ka cabsado walaalayaal. Gabar way idin dhashay, waa dhali doontiin, wayna la dhalatay. Ilaahay ka cabsado walaalayaal. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.